السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الكسر لوادا سويدل TV. waxaan dhamaantiin boogsoonnahay in xanuun faraba aan dunida ku haya bilihii u dambeeyay uu soo ifbaxay. Xanuunkan ayaa waxa la dhahaa corona. Waana word Latin ah macnaheeduna uu yahay touch. Markii ugu horeysay waxa lagu arkay bartamaha Shiinaha gaar ahaan gobolka Wuhan meel lagu kala iibsado kheyraadka badda. Xanuunkan ayaa maalmihii u dambeysay waxa uu dilay tiraba in ka badan 10 qof. Boqolaal kun oo qofna sariirta ayay u yaalaan. Wadamadii ugu waaweynaa caalamka sida Mareykanka, Ruushka iyo Talyaaniga waa meelaha aadka ugu aafiyay. balse ka Soomaali ahaan waxaan jeclaysanaynaa in la helo xanuunkan ka hortagiisa rasmiga ah. waxaana ay dhakhaatiirtu sheegayaan in bilaha soo socda la rajaynayo inuu soo baxo talaalka lagu talagalay xanuunkan walow aansan la saadaalin karayn xaddiga iyo inta uu ka dili karo dadka bukaanka u jiifa. maalmihii la soo dhaafay 11,000 oo qof oo Iiraani ah ayaa waxay ka tooseen xanuunkan oo caafimaadkoodii dib u soo ceshaday Ilaahay idankiisa. waxaan isku dayaynaa inaan xoogaa ka iftiimino habka iyo qaabka aan uga hortagi karno ka muslimiin ahaan. daawashoocan dhammaanteedba waxaan ogsoonahay in xanuunada iyo fayrasyada ama bakteeriyada ay ka soo galaan jirka 3 qaybood iyagoo ka soo galaya dhanka afka iyo dhanka sanka ama dhanka isha. fayraskan corona waxa uu badanaaba ka soo gali karaa jirka 3 qaybood. 3 qaybood qaybta ugu horeysa waxaan eegi doonaa isha iyo qaabka ay ishu iskaga caabiso fayraskan iskagana celin karto. sida jaantuskan ku aragtaan wuxuu inoo tilmaamayaa qanjirka ilmada inuu markuu fayraskan aqbalo uu ilmada sii daayo ilmadana uu ogolaado inay isha kormeerto si ay fayraskan uga daadiso. kiishka ilmada oo ka hooseeya maqorkana la wadaaga xiriir ayaa waxay ku soo daadanaya fayraskan qaybo kamid ah. halkaas ayaanu jidhka uga gudbi karaa. balse dheecaanka uu soo daayay qanjirka ilmada ayaa waxa uu ka caawinayaa in aad dareento ilmo fara badan marka fayraskan jidhkaaga uu soo galo. ilmadana waxay qubaysaa fayras ama bakteeriya aansan jidhku aqbali karin. habdhiska difaaca jidhkuna qayb ayuu ka qaadanaya. balse waxa laga yaabaa kiishka ilmada afkeeda hore inuu u gudbi karo halkaas oo maqorka ama sanka maqorkiisa u soo gudbi karo. hadaba isha markaan halka kaga nimaadno waxaan soo gudbaynaa qaybta sanka. sida ogsoonahay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu sankeena u sameeyay timahaas oo inaga caawiya in aan walxaha yaryar ee bakteeriyada ama fayraska aysan neefmareenkeena u gelin. timahaas ayaa waxay hayn karaan ilaa 4 saacadood. maadada loo yaqaan khaad ama af Soomaali waxay ku noqonaysaa duufka ayaa wuxuu ku haynayaa sanka maqorku ku haynaya. maqorka markuu ku hayo fayraska halkaas ayaa lagu xanibaya. sanku wuxuu si toos ah u hayn karaa 4 saacadood. 4 saacadood waxa laga yaabaa inaad isweydiiso sidee baan iskaga caabin karaa ama xanuunkan ama fayraskan khatarta badan si aan u gudbin habdhiska neefsashada jirkayga sidee baan iskaga difaaci karaa. hadaba inagoo aan meel dheerba ka doonin qofka iska difaaci kara ama iska celin kara fayraskan intaan u gudbin habdhiska neefsashada jirkiisa waxa weeye qofka tukada ama qofka weysaysta 5 salaadood. sidaan ogsoonahay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu inagu waajibiyay 5 salaadood oo ummadda Nabi Maxamed uu ku waajibiyay. 5 salaadood inta u dhaxaysa 4 saacadood way ka yartahay marka loo eego salaada subax iyo salaada dhuhur oo muddo dheer ay u dhaxayso. balse nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu aad u amaanay salaada duxada. in salaada duxada hadaad ku darto 4 saacadood in ka yar ayaad sankaaga dhaqaysaa. sanka ama weysada sandaarsiga wuxuu samaynayaa in wax alaale wixii fayras maalinta galay sankaaga inuu dibadda keeno. markaad sandaarsiga istinshaaq samayso dibadana aad iskaga keento biyaha waxa uu keenayaa wax alaale wixii fayras jirkaaga galay. sidaas ayaad weysada kaga takhalusaysaa dhammaan fayraska sankaaga soo gala. hadaba marka sanka laga yimaado manfadka saddexaad ama qaybta saddexaad ee fayrasku ka soo gali karo jirka oo noqon karta afka. sida muuqaalkan ama jaantuskan aad ku aragtaan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo sameeyay shabag ka difaacaya jirka oo idil dhammaan fayraska ama bakteeriyada soo gali karta ee aanu jirka u baahnayn ama hanjabaadda ugu badan ku hayn karta jirka caafimaadkiisa. sidaad aragtaan lymphocytes-ka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu talagalay xoqadihii ama qanjidhadii u taagan jirka ka difaacaya dhammaan xanuunada soo gala. sidaad jaantuska ku aragtaanba lymphocytes-ku waxay ku yaalaan jidaarada marinka cuntada iyo marinka naqaska oo idil. sida caadiga ah xoqaduhu waxay jirka ka hayaan 4 cisho dhammaan fayrasyada ama bakteeriyada soo gasha iyagoo kaashanaya habdhiska difaaca jirka. halkaas aanay ku xanibaan. sida caadiga ah waxay la tacaamulaan
xanuun kasta nooc kasta uu eegyahay. haddaba sidee ayaan iskaga caabin karaa xanuunkan? waxaa jira qaab fudud aad iskaga difaaci karto si fayraskan aad halkan ugu gubto una burburiso dhammaan kayaankiisa oo dhan. waxaad soo qaadanaysaa koob biyo oo kulul iyo sinjibiil iyo liin dhanaan. waxaad biyaha kulul ku shubaysaa liin dhanaanta adigoo xoog ugu tuujinaya. sinjibiisha ayaad soo qaadanaysaa waxaad ku daraysaa biyaha. haddii aad u isticmaali karto shaah qudhiisa waad u soo qaadan kartaa. waxaana fayraskan marka ay biyahan kulul iyo liin dhanaanta iyo sinjibiishu ay burburiyaan uu daadanaya xaggaas iyo caloosha. halkaas ayaana waxa ku burburinaysa hydrochloric acid. hydrochloricna waxay awood u leedahay inay burburiso dhammaan fayrasyada ama bakteeriyada u soo dhaadhaca. waxaan rajaynayaa insha Allah inuu idin anfacay saddexda qaybood ee habdhiska difaaca jirka iyo qaabka ugu fudud ee corona la iskaga difaaci karo. haddaba dhakhaatiirtu waxay ku talinaysaa in qofku markuu isku arko astaamaha xanuunkan qaar la mid oo kale ama uu jirkiisa uu ka dareemo, waxa ku waajib ah in uu dhammaan iskaga fogaado waxa laale wixii suuxinaya habdhiska nidaamka difaaca jirka, sida dhammaan dawooyinka ay ku jiraan xumad jabinta. waayo xumad jabintu waxay jirkaaga ka caawinaysaa in uusan habdhiska difaaca jirku si fiican uga shaqeynin goobta bugta. waqtiyada shaqada aad ku jirto iyo waqtiyada gurigaaga joogtaba inaad isticmaasho kofta. kofta waxay ka saamaxaysaa xoqadaha in ay gubaan dhammaan fayraska ku kaydsan. ugu dambeyntii waxa qofku isweydiin karaa haddii jirkayga uu soo gudbo qaybta neefsashada fayraskan maxaa samayn karaa? haddaba halkaas ay khatarta ugu badan ka bilaabmaysaa jirkaaga hadduu u soo gudbo qaybta sanbabada fayraskan khatarta badan, waayo wuxuu keenayaa caabuq isagoo u horseedi kara sanbabadaada inay shaqada joojiyaan. balse dawada rasmiga ah caabuqyada ku yimaada jirka gudihiisa waxa weeye subaxii salaada hore adigaan waxba cunin inaad soo qaadato mid toon ah oo aad ku rido afkaaga adigoo liqaya calooshaada maranna. waxa dhammaanba uu la dagaalamaysaa fayrasyada iyo bakteeriyada iyo variant antigenka soo gala jirka in ay dhammaan breakdown ku samayso ilaahay idankiisa. sidoo kale waxaad fayraskan uga guulaysan kartaa adigoo si nafsad ahaaneed ku burburinaya. nafsad ahaaneed qaabkee aan ku burburin karaa baad oran kartaa? fayraskan farxadaada haddii ay hoos u dhacdo, haddii aad warwar fara badan jirkaaga geliso, difaaca jirka uu gabayo. laakiin haddaad jirkaaga ku dhiirigeliso inuu iska difaaci karo fayraskan oo dibadda uu iskaga qubi karo, dhammaan dardar ayay helayaan, kadibna fayraskan waa la caydhin karaa. tusaale ahaan iminka haddaad sadaqad bixiso, aad sadaqadaas يعني أديكو فرحسن أو نيسن أو لا يعني وحن أبحي إله إذن كيس نفس الدايدا دمان إن العافمات كهلو أي ربا الله سبحانه وتعالى عافمات يكون سينيا نفس الدايدا الدردر في عن يجدي ديلا يا جلسة دمان وحيابها ويق يشركها جنا دي بداية وأمكم يعني إله إذن كيس أن هذا ضبط أنت مقال كان وقف عربية واحد كرد على عنده أنت دكتور عبود أما دكتور عبود oo aad isagana ka daawan kartaan tafaasiil buuxan aad ka heli kartaan qodobadana aan ka soo xiganay. wixii fikir aad ka qabtid muuqaalkan buttonka ee bixinta noogu reeb, subscribe na noo saar si muuqaal kasta uu ku soo gaaro. aad ba mahadsantiin.